degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ah degmadii ugu dambeysay ee al-shabaab kaga sugnaayeen gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ciidanka dawladda Soomaaliya oo muddooyinkii la soo dhaafay ku sii jeeday waxa ay ula wareegeen si buuxda waxaana gacantooda laga saaray kooxda al-shabaab ciidanka dawladda Soomaaliya oo muddooyinkii la soo dhaafay ku sii ruqaansanayay degmada aadan yabaal oo ahayd fariisinka ugu weyn ee al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa la soo warinayaa inay al-shabaab isaga huleeleen halkaasi kadib markii ay kooxda al-shabaab halkaas ku qabsadeen dagaal qaraar oo ay ku qaadeen ciidanka dawladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka dhawaan ayay ahayd markii uu madaxweynaha Soomaaliya la ballamay kumanaan kamid ah ciidanka dawladda dhexe ee Soomaaliya kuwaasi oo u diyaarsanaa inay dagaal ku qaadaan al-shabaab ballan uu la galay madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay ahayd inay si buuxda u qabtaan degmada aadan yabaal isaga oo sheegay inuu ka sugayo degmada aadan yabaal oo la qabtay ciidanka dawladda Soomaaliya oo fulinayay amarka madaxweynaha Soomaaliya waxa ay si buuxda ula wareegeen degmada aadan yabaal waxayna halkaasi ka saareen kooxda al-shabaab kooxda al-shabaab oo aan tabar badan lahayn waxa ay isku dayday inay dagaal kala hortagto ciidanka dawladda Soomaaliya ee soo galay degmada aadan yabaal waase ay ku guul daraysteen waxaana lagu gaarsiiyay dagaal halkaasi ka dhacay jab xoogan ciidanka dawladda Soomaaliya oo 3 jiho oo kala duwan ka galay degmada aadan yabaal ayaa al-shabaab halkaasi waxay ku gaarsiiyeen khasaare xoog badan waxaase la soo warinayaa in kooxda al-shabaab ay ceel biyoodyo ku yaalay degmada aadan yabaal ay kala bixeen bamkii ay ku shaqeynayeen ceelashaasi kadib markii ay degmadaasi isaga huleeleen sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu jeediyay khudbadu dhowr dhinac diiradda ku saaray oo kaga hadlayay dhinaca amniga iyo xaaladda uu dalku ku sugan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in dalkeenu uu galay dagaal xoog leh kaasi oo degmooyin badan looga qabsaday ururka al-shabaab madaxweynuhu waxa uu sheegay in degmada aadan yabaal oo ah degmadii ugu dambeysay laga qabsaday dhinaca masaajid Cali Gaduudna dhawaan la qabsaday waxa uu kaloo madaxweynuhu sheegay in ciidamadii loo diyaariyay inay gacanta ku dhigaan degmada Xarardheere ay diyaarsan yihiin kuwaas oo laga sugayo inay degmadaasi gacanta ku dhigaan khudbada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo uu diiradda ku saaray dhowr dhinac ayuu wuxuu ku sheegay in Soomaaliya ay meel fiican marayso iyada oo laga cafinayo 5 bilyan oo dollar farabadan ayaa lagu lahaa muddo 10 sano aan aad ula soo tacaalaynay deynkaasi inaan gudno sidii aan ku meel gaarnimada uga baxnaba deynka sidii aan isaga looga cafin lahaa gudid ma ahaanayna looga cafin lahaa ayaan geed dhali geed gaaban u taagno تارمك وراني مدحوينها هي كسب بالله تارمك يقدر بيوم مدحوين فرماج جو كحجي هذا كان أنا قاعد صار نقد أنت الجوج هذا كسي حجي أنت صار دبيان ليس دب الجوجة أيها وحلا لسه ميني سيد الدين تبلك ومن ضل لو قاعد فيها دين كما أكيد عقبضه الباب بدنا نجحرا وأن محنكور هذا هو مريض يدي بس كذلك أنا أوقعشان دين كمركا إن أن لقنا لقع فيها هي وحياة هيدا عرين آدي أدب دين عفنتين ويصير ماتي بلان وهري عن رجينا ذلك أن وضنه هي أنت يرتع المضمن وقوانين تقار كذا برلمان كتالو إلا قدبية برلمان قدبية للربا أي كمديين عن رجينا برلمان كنا مع الماء يسبوع إذا صار إنه يكون مشغول أنه قدبين دون يعني نقدمه madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in deyn cafinta Soomaaliya marayso meel gabagaba ah markii laga cafiyo deyntana ay Soomaaliya qaadan karto deyn hor leh iyada oo halkaasi ku dhisi karta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkeena madaxweynaha oo si qiiraysan ula hadlayay dadka Soomaaliyeed waxay khudbadiisii maanta u muuqatay mid ka turjumaysa xaaladda dhabta ah ee dalkeenu ku sugan yahay madaxweynahana ay ka go'an tahay inuu dalka ka ciribtiro kooxda al-shabaab sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu muuqday nin darsay xaaladda dalkiisa waxa uuna u ekaa hogaamiye ay ka go'an tahay inuu dalkiisa nabad ka dhigo intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintan oo ku dulmareynay xaaladihii ugu dambeeyay ee degmada aadan yabaal iyo khudbadii madaxweynaha Soomaaliya ee maanta